السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada maanta darsigeena wuxuu ku saabsan yahay waxa la yiraahdo nested loop. Horey waxaan ugu soo hadalnay waxa la yiraahdo while loop waxaan ku soo sheegnay marka while loop soo maraynay waxaan ku soo sheegnay in code aan soo daawacno hal mar, laba mar, saddex mar iyo intaan doonaba aan soo celino. markaas waxaan isticmaalaynay wax loo yaqaano while loop. waxaan kaloo soo aragnay for loop ayaan soo aragnay. for loop waxaan ku soo sharaxnay in badan inay la shaqeyso sida listiga, nambarada taxan iyo stringska magacyada ama wax walba oo si sequence ah loo soo daawacayo ayaa inta badan la shaqeysa. maantaydan waxaan rabnaa inaan ka hadalno wax la yiraahdo nested loop. nested loop wax kale ma aha loopiska aan soo isticmaalaynay ama loop oo loop kale lagu dhex abuurayo waaye. marka waa arkaynaa insha allahu tacaala. tusaale maanta waxaan rabnaa inaan isticmaalno x iyo y. x iyo y ayaan isticmaalaynaa sida tan amal ayaan isticmaalaynaa haddii ilaahi subxaana wa tacaala garal noqdo x, y tan number oo waxaan soo daawacaynaa 0 iyo wixii lamid ah. marka x qiimaheeda y qiimaheeda ayaa rabnaa inaan soo daawacno. x iyo y ayaan isticmaalaynaa haddii ilaahi subxaana wa tacaala garal noqdo. marka ugu horeyso horta waxaan isticmaalaynaa x ayaan isticmaalaynaa. waxaynu leenahay for x in range waxaanu leenahay number 4 waxaanu leenahay print x. haddaan soo print garayno waa ujeedaa 0 ayuu ku bilaabayaa 0 ilaa iyo 3y number ayaan ku codsanay inuu noo soo daawaco. marka sidaas si lamid ah ayaan rabnaa meeshan. hadda waxa waaye hal loop ayaan abuurnay. marka loopkan dhexdiis ayaan rabnaa loop kale inaan ku abuurno, waana taa ujeedada maanta casharkeena. sababtoo kan waxa waaye waxaan soo abuurnay hal loop ayaan soo abuurnay waana soo daawacnay waa 0 ilaa 3 afar number waaye. marka waxaan rabnaa for loop ayaan rabnaa inaan loop kale aan ku dhex abuurno. marka sidee u isticmaali karnaa? marka waxaynu leenahay press enter de halkaan ayaan waxaan ku abuuraynaa. kan waa tirtiraynaa print x, tan waa tirtiraynaa y. marka loop koowaad waa x in range 4y. marka waxaan abuuraynaa loopkaas ayaa waxaan ku dhex abuuraynaa loop kale. marka waxaynu leenahay y in range. marka waxaynu leenahay print bankaral brace in y soo daawac ayaanu leenahay. marka waxaan leenahay close round bracket. marka halkaan waxaan rabnaa si parallel inay soo daawacmaan y iyo x. marka aan run garayno programka waxaan leenahay run the program. marka waa ujeedaa 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 2 3 0 3 2 and so saas ayay usoo daawacaysa. marka aan sharaxno marka qaabka saan ay ugu soo baxday. nested loop sida aan kusoo sheegnay waxa waaye loop oo lagu dhex abuuraayo another loop. loopkan wuxuu ku dhex abuuran yahay loopkan sare ayuu ku dhex abuuran yahay. marka wuxuu sameynaa nested loop waxa waaye waxa lagu yaqaano ayaa waxay tahay marka ugu horeyso controlku wuxuu soo jeegaraynaa loopka koowaad ayuu soo jeegaraynaa. x marka ugu horeyso waa 0 halkaan saa ujeedinba x waa 0. wuxuu imaanaa loopka oo ku dhex jiro loopkan kan uu imaanaa. marka loopkan imaado loopkan asna waxa waaye y waxay la mid tahay 0 ayay la mid tahay. controlka halkaan ayuu imaanaa wuxuu soo daawacayaa x iyo y ayuu soo daawacayaa. x waa 0 y-na waa 0. marka controlku uu gadaal u laabanaa wuxuu tagayaa lineka labaad ayuu tagay intuu kan kaga soo dhammaanayo meynaayo ma u gudbaayo kan banaanka ah. marka hore wuxuu soo dhameynaa midka gudaha ku jiro ayuu soo dhameynaa oo kana. marka halkaan ayuu jeegaraynayaa mar labaad x waa 0 y waxay noqonaysaa 1 ayay noqonaysaa. halkaan ayuu imaanayaa wuu soo daawacayaa labadaba 0 iyo 1. mar labaad wuu baxayaa kor ayuu aadayaa halkaan ayuu tagayaa lineka labaad
x weli 0 waay, y-na waxay maraysaa 2 ayay maraysaa, y-na 2 waay. halkan ayuu imaanayaa x iyo y buu soo daawacayaa, waxa waaye 0 iyo 2 waay, x oo weli 0 ah, y oo 2 ah. wuu baxayaa, wuxuu tagayaa meesha ugu sarreysuu tagay hadda marka x ayuu soo daawacayaa, x 0 1 ayay noqonaysaa. x markay 1 noqoto wuu soo laabanayaa, halkan ayuu imaanayaa, mar kale ayuu si la mid ah soo bilaabayaa y halkan marka 0 waay, x 1 waay weli, y waxay noqonaysaa 1, x weli 1 waay, y waxay noqonaysaa 2. marka saas ayay u shaqaynaysaa ilaa iyo dhammaadka. marka darsigeena maanta wuxuu ku saabsanaayay nested loop, oo ah loop oo lagu dhex abuuraayo loop kale dhexdiisa ayuu ku saabsanaayay darsigeena maanta. waxaan filayaa in badan in la fahmay. marka ugu horeyso waxaan abuuraynaa loop ayaan abuuraynaa, marka labaad loopkan waxaan ku dhex abuuraynaa another loop oo y ah ayaan ku dhex abuuraynaa. marka muhiimadiisu waxa waaye markii loop ku dhex abuuran yahay loop kale dhexdiisa, mar walba waaye kan dhexda ku jiro ayaa howshiis lasoo dhameynaa. markaas kadib controlka wuxuu u baahayaa, wuxuu aadayaa x ayuu aadayaa, markii y dhameeyo ayuu x aadayaa. marka sidaas ayuu u shaqaynayaa. maanta darsigeena wuxuu ku saabsanaayay nested loop, oo ah in loop lagu dhex abuuro another loop lagu dhex abuuro. loopna waxaan kusoo sheegnay operationo oo soo laablaabto, sida haddaa aad rabto code inuu mar badan aad soo celceliso oo si fudud aad kasoo celcelin karto. intaad qori lahayd maanta oo dhan wax walba loo baahan yahay aad qori waqti badan kugu qaadan lahay, marka waxaad leedahay sida tan ayaad u samaynaysaa, qaabkan ayaad isticmaalaysaa. marka darsigeena maanta wuxuu ku saabsanaayay nested loop ayuu ku saabsanaayay. marka channelkeena haddaa ku cusub tahay subscribe iyo like saar. marka darsigeena inta badan casharadeena aan soo diyaarino inta badan waxa waaye kama badno 10 daqiiqo, 5 daqiiqo ilaa iyo 10 daqiiqo ay u dhexeeyaan. marka taasna waxaan ugu talagalnay in laga caajisin oo mar walba waxa waaye adigoo faraxsan oo hadbi dareemayo aad dhamaysatid oo si fududna waxaa ku fahantid. insha allah wixii su-aalaha qabtin sida aan horey idinku sheegay soo gudbiya. aad aa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.